waa gabar Soomaaliyeed oo maxkamad wadanka Australia qaasatan Melbourne xukuntay oo run ahaantii arrin weyn loo haysto markii hore video asxaabta gaarsii gabadhan oo magaceeda lagu sheegay Istaahil Xasan daada lagu sheegay 55 jir Soomaaliya waxa la sheegay lacag milyan ku dhawaada adigu lacag 800,000 oo dollarka lacagta Australia laga isticmaalo in ay gabi ahaanba gabadhaasi ay ku cuntay in ay dadka naafada ama sidoo kale disability-ga carruurta khaasatan inay xanaanayso laakiin barnaamijkaas aan waxba ka jirin oo la sheegay in lacagihi siyaabo kale oo aan ka sheegi karin ee run ahaantii ku taraka fushay kulli sida warbaahinta khaasatan wadanka ka soo baxday ay sheegtay hal sheegay gabadhani inay Turkiga hawlo ku qabatay lacagteeda adigu iska waxyaalo brifaada waqti xaadirkana run ahaantii la haysto sababtoo khiyaano qaran ayay gashay arrimo badan ayaa jira oo halka laga sheegi karin laakiin gabadha waqti xaadirkan kulli saas loo haystaa xaaladda halkaas maraysa asxaabta Australia joogta bal video ha loo share garayo warkan inuu sax yahay iyo in kala sababtoo ayaga ayaa sheegay salaam